qof kasta oo inaga mid ah waxaa soo marta xaalado kala duwan oo isdaba joog ah kuwaas oo isbedel weyn ku keena hab nololeedka qofka. sidaa darteed marna ha ku xukumin qofka muuqaalka aad ku aragtay, duruufta ka muuqata, hadallada carada leh uu ku hadlayo, daciiftinimada ka muuqata, welwelka iyo murugada saaran wejigiisa. si kasta oo ay xaaladiisu tahayba, qofkaasi ugu horeyn ogow dhacdada xanuunka leh ee ku sababta qofkaani inuu isbedelo galana xaalad noocan oo kale ah. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيقو وقاسم محمد waxaana hay saaxiibkaaga guusha iyo horumarka. ahow mar walba qof positive thinker ah oo mar walba wax ka eega dhanka wanaagsan. sida aan wada ognahay waxa ina soo marta xaalado kala duwan oo isugu jira kuwa saameyn ku yeesha hab nololeedkeena naguna sababa inaynu u noolaano hab aysan jeclaysan bulshada nagu hareereysan naguna xukuma si degdeg ah. sidaa darteed ayaan muuqaalka waxaan kugu soo diyaariyay adiga daawanaya muuqaalkan inaadan ka mid noqon dadka sida degdega ah wax u xukuma dadka ku jira xaaladaha adag ee nolosha. ila fiiri qisadan cajiibka ah ee dhex martay arday iyo macallimadiisa. ardayga waxa uu ahaa galaaska 5aad ee dugsiga dhexe. marka aad fiiriso muuqaalkiisa waxa uu ahaa mid aan soo jiidan dareenka indhaha oo wuxuu soo qaadan jiray uniform aan nadiif ahayn. macallimadiisa waxay ka aaminsaneyd ardaygan inuu yahay arday ka dhacsan nolosha iyo waxbarashadaba maadaama uu ahaa arday ku liita fahanka casharada, muuqaalka jirkiisa iyo dharkiisuna aysan ahayn kuwo wanaagsan. ardaygan ma uusan ahayn arday ku dhex leh saaxiibo ardayda dhexdooda, wuxuuna ahaa arday ay ka muuqato tiiraanyo iyo fikir, wuxuuna mar walba ku dhex hurdoon jiray fasalka dhexdiisa. macallimadiisa oo horjoogaha u ahayd fasalka uu dhigto ardaygan waxay samaysaa mar walba oo imtixaan la qaado warqadiisa waxay ka saari jirtay warqadaha kale, waxayna ugu soo qori jirtay inuu yahay arday guul dareystay oo ku dhacay imtixaanka uusan u qalmin fasalka uu dhigto. macallimadii maadaama ardaygan uu yahay arday liita waxay ku fikirtay inay baarto taariikhda ardaygani iyadoo dalbatay in loo keeno fasaladii hore uu u soo dhaafay feelashii laga diyaariyay sida fasalka 1aad, fasalka 2aad, fasalka 3aad iyo kan 4aadba. nasiib wanaag macallimadii waxaa loo keenay feelashii laga diyaariyay ardaygan. macallinkii ugu horeeyay ee fasalka 1aad u soo dhigay waxa uu ugu qoray buugiisa ardaygan waa arday wanaagsan oo fahmad leh mudanna in lagu faano. fasalkii 2aad macallinkii u soo dhigay ee horjoogaha u ahaana isagana wuxuu u soo qoray ardaygan waa arday wanaagsan balse marka ay hooyadiis uu ku dhacay cudurka kansarka waxa uu galay xaalad isbedel weyn ku keentay waxbarashadiisa, wuxuuna noqday arday fikir badan. macallinkiisii fasalka 3aad waxa uu u qoray ardaygan sida ay hooyadiis u dhimatay waxa uu galay xaalad murugo leh oo yareysay fahamkiisii, wuxuuna noqday arday kaligiis isla sheekaysta. haddii uu sidan ku sii socdana waxa uu noqon doonaa arday nolosha ka dhaca. sidoo kale macallinkiisii fasalka 4aad waxa uu u qoray ardaygan waa arday ku liita waxbarashada oo aan waxba fahmayn, ayna u dheer tahay fikir iyo tiiraanyo joogto ah, sidaa darteed waa arday ka dhacsan nolosha. intaas kadib macallimadii waxay ogaatay inuu ahaa arday wanaagsan balse dhimashadii hooyadiis inay saameyn weyn ku keentay hab nololeedkiisii maadaama uu waayay daryeelkii hooyadiis. sidaa darteed ay ku adag tahay inuu wax barto
iska daaye inuu noolaado. Maalintii dambe maadaama uu imtixaankii soo dhamaaday, arday walba waxa uu hadiyad u keenay macallimadiisii. Arday walbana waxa uu keenay hadiyad qurxoon oo ku jirta galka hadiyadaha. Laakiin ardaygii waxa uu keenay hadiyad yar oo ku soo duuduubay warqado, wuxuuna gacanta ka saaray macallimadiisii. Isla markiiba waxa ku qoslay ardaydii fasalka. Laakiin macallimadii waa ay ka qaaday hadiyadii, waxa ayna u sheegtay inay ku faraxsan tahay hadiyadiisii. Hadiyadii waxay isugu jirtay uu keenay ardaygii katiin iyo dhalo catar ah. Durbadiiba macallimadii katiinkii qoorta ayay suratay ama ku xiratay, catarkiina way marsatay. Maalintaas wixii ka dambeeyay marka iskuulka la iska deeyo, ardaygii wuxuu u istaagi jiray banaanka, waxa uuna sugi jiray macallimada. Macallimadiisii wuxuu ku yiri, waxaan ka carafsanayaa catarkii hooyaday oo aan hadiyad kugu keenay adiga isagoo haaf ah. Hooyaday ayaa ka dhimatay catarkaas isagoo bar ah, waxaana u haysan jiray xasuus. Haddana adiga ayaan kuu hadiyeeyay oo waxaa ka carafsanayaa caraftii hooyaday. Isla markiiba macallimadii way ilmeysay, iyadoo la tiiraanyootay hadalkii qiirada lahaa uu ku yiri ardaygeedii. Waxayna go'aansatay oo ay bilowday inay daryeesho ardaygan, iyadoo niyadda u dhisaysa una muujinaysa jacayl iyo damqasho. Markii la gaaray imtixaankii ugu dambeeyay ee sanad dugsiyeedka, ardaygii waxa uu keenay natiijo aad u wanaagsan oo ka sareysa kuwii hore uu u keeni jiray. Ugu dambeyn, marna ha ku fududaan inaad xukunto qof adigoo aadan ogeyn sababta ka dambeysa xaaladiisa. Waxaan rajeynayaa in wax badan aad ka kororsatay muuqaalkan. Soo sidaas maahan? maxaad ka qabtaa haddii aad nagu soo biirto? taaba badhaga guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe, kadibna fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaal walba aynu soo dhigno. Sidoo kale dhiirigelin ayaa inoo tahay muuqaalka inay inoo saarto like, una sii gudbiso asxaabtaada kugu jirta baraha bulshada qaybihiisa kala duwan sida Instagram-ka, Facebook-ga, WhatsApp-ka iyo aalad walba oo aad ku gaarsiin karto asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iideystaan. Inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalada soo socda, waxaan ku leeyahay aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.